gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ay garab taagnaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolada waqooyi ayaa maanta waxay shir jiraayad ku qabteen magaalada Muqdisho kaas oo ay kaga soo horjeesteen shirka madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka uga furmay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. ugu horeyn shirka jiraayad waxaa ka hadlay gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka Ibrahim Iila Suleymaan oo ay garab taagnaayeen xubno uu ka mid yahay wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa faahfaahin dheeraad ah waxa uu ka bixiyay mowqifkooda kaga aadan shirka magaalada Dhuusamareeb wuxuuna ku baaqay in la qabto shirweyne qaran. shirka jaraa'id oo aanu doonayno inaanu ku iftiimino halka aanu ka taaganay iyo mowqifkayga ku aadan shirka ka furmay magaalada Dhuusamareeb. mowqifkayguna oo waa sidaan ku cadiyaa mowqifka siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka gobolada waqooyi Soomaaliland ee shirka Dhuusamareeb annaga oo ka duulayna go'aanka shirka lagu sheegay wada tashiga ee madaxweynuhu ku baaqay inuu ka furmo ka wada bisha 2021 caasimada dawlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb waxaan la wadaagaynaa madaxda shiraysa musharaxiinta bulshada rayidka ah shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo bulshada caalamka mowqifkayga ku aadan shirkaas oo ah sidan soo socota. iyadoo maanka lagu hayo miisaanka ay leedahay qadiyada doorashada xubnaha ka soo jeeda Soomaaliland iyo muhiimadda ay ugu fadhido midnimada qaranka iyo wadajirka siyaasadeed ee dalka gudoomiyaha aqalka sare wuxuu si rasmi ah ugu wargeliyay kowdii bishii 2021 madaxda heer federaal iyo heer maamul goboleed inuu go'aansaday in isaga iyo wafdi uu hogaaminayo shirka ka qayb galaan. hase ahaatee madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa ku soo wargeliyay in gudoomiyuhu uusan shirka ka soo qayb gal karin isaga oo ku sababeeyay inuusan ku jirin liiska martiqaadka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya soo gudbiyay. haddaba waxaanu si adag u diidanahay in aan loo dhameyn ka qaybgalka shirka oo ay ka maqan tahay matalaada gobolada waqooyi Soomaaliland oo ka mid ah saddexda arrimood ee khilaafka doorashadu ka taagan yihiin. sidaa darteed waxaan halkan ugu baaqaynaa madaxda shiraysa musharaxiinta xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya bulshada rayidka ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee beesha caalamka in la isku yimaado shirweyne qaran. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo isna dhankiisa shirkaasi jiraayad hadal ka jeediyay ayaa ku eedeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuusan aqoonsaneen golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo loo igmaday dhameynta khilaafaadka soo kala dhexgala dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka. aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida uu dastuurka qaranku sheegayo qodobkiisa 61 iyo 71 uu ku sheegayo waa matalaha waa wakiilka dawlad goboleedyada ama xubnaha dawladda federaalka xubnaha ka noqonaya. waxa kale uu leeyahay waa ilaaliyaha nidaamka federaalka ee dalkani qaatay. waxaan ka xumahay muddada uu jiray aqalka sare in aan madaxweynuhu waa gaar ahaan madaxweynuhu una aqoonsan tixna gelinin waajibaadka dastuurku uu siiyay aqalka oo ah waa matalaha dawlad goboleedyada oo kolkaas khilaaf kasta iyo wada hadal kasta oo dhaxmara dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada aqalkaasi inuu yahay midka shirarkaasi muhiimad gaari ay ka saaran tahay oo dhexdhexaadiyaha ah oo xiriirka bridge-ka isku xira ama dildilka isku xira uu yahay ayaa ku cad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya. waxaan ka xumahay shirka lagu qabanayo ee ay ku shirayaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu inaan aqalkani una ka qayb galin oo halkaas maxay cadeynaysaa laba sababood ayaa cadeynaysaa. waxay cadeynaysaa madaxweynaha jamhuuriyaddu inuuna ogolayn aqoonsanayn nidaamka la qaatay ee federaalka
waxa kale uuna aqoonsanayn uuna fahamsanayn in Soomaaliland diba ka maqan tahay oo uu moodayo dalkii oo mid ah oo isku jira oo jooga inuu madaxweyne u yahay aqalkanina aniguna waxaan matalaa waxa ay doortay laba doorasho ayaan qabaa midi waxa weeye shicibka Soomaaliland ka soo jeeda ee halka joogta waxay ii doorteen inaan noqdo wakiilkooda aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya inaan wakiilkooda noqdo oo aan ahay shakhsiga ugu sareeya ay u doorteen xilkaas talabaad waxa weeye baarlamaanka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu ii doortay inaan noqdo gudoomiyaha aqalka sare arintaas kolka waxay cadeynaysaa oo ay tahay inaan labadaba u joogo inaan u joogo matalaada Soomaaliland oo ay tahay arrimaha Soomaaliland aniga iyo intii ila midii inay matalayaan oo ay tahay inaan shirarka uga qayb galno talana aan ku yeelano wixii ku socda ee midnimada Soomaaliya leesh annagu waxaan u joognaa midnimada Soomaaliya aniguna aan ugu ahay qofkay u doorteen ee ugu sareeya talabaadna waxa weeye inaan dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka dawladda dhexe inaan ahay qofkii arrimaha khilaafaadka iyo wixii la isugu tagayaba inaan ka noqdo qofka matalaya ee baarlamaankii u matalaya Soomaaliyeed waan ka xumahay madaxweynuhu federaalkana ma aqoonsana aqalka sare xilkiisana ma aqoonsana Soomaalilandina inay ka maqan tahay ma qabo ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkana waxaan u sheegayaa arintu halka ay sartu ka qurunsan tahay halkaas weey aad iyo aad baad mahadsan hadalka ka soo yiray gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu ku soo beegmayaa kadib markii maanta magaalada Dhuusamareeb uu ka furmay shir u dhaxeeya dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka kaasoo lagu gorfeynayo isla markaana lagu xalinayo khilaafka ka taagan doorashada dalka Cabdiraxmaan Waabirisom News Muqdisho BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama accountkiisa Daarasalaam Bank haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga payc